kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogteen iyo sulbo noo daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal qurux badan halkan naga daawanaysaan waa badbaado show fadlan subscribe sa channelka haddii aad ku cusub tahay like share comment inta waa laga doonaya waxa kale hadlaya waa wiilkiina cid kale ma ahan okay sheeko xiiso badan ayaan idin wadaa maanta sheekadan waxay ku saabsan tahay 16 kalkaaliyaal caafimaad ah oo dumar ah oo hal isbitaal ka wada shaqeynayay isla markaana hal mar 16 kood uur ay qaadeen waxaan leeyahay isbitaal ku yaala magaalada Mesa ee gobolka Arizona ee dalka Mareykanka ay ka wada shaqeynayeen waxay ahaayeen 16 kooda kalkaaliyaal anka caafimaadka ah waxaan leeyahay hal mar ay wada ogaadeen 16 kooda in ay uur leeyihiin waliba 10 kamid ah waxay ka shaqeynayeen qaybta gargaarka degdega ah ay ka shaqeynayeen isbitaal waan kartaa 16 kalkaaliyaal kamid ah hal mar ay uur wada qaadeen in ay meesha shaqaaleeyay ka imaanayso Julian waxa ay leedahay waxaan aadi doonaa bisha September sanadkan aan ku jirno 2020 waa September marka waa arin cajiib ah waa arin maxaan lahayn waxyaabaha ka mid tahay adduunyada dhif inaadirka ah in shaqaale intaas la eg haddana hal isbitaal ka wada shaqeynayay in ay hal mar uur wada qaadaan waxa ay leeyihiin dadkan waxa aan noqonay saaxiibo isku dhow markaan arrintaas isku aragnay qol ayaan samaysanay Facebook group ayaan halkaas ku samaysanay si aan xaaladeen aan wada ogaano haddana waxa ay leeyihiin waxaan sameyn rabnaa xaflad aan u qaban rabno dhammaan kalkaaliyaasha kala duwan ee ka shaqeeya isbitaalada ku yaala wadankaas ayaan xaflad u sameyn doonaa ay leeyihiin si aan isaga warqabno gaaraan kalkaaliyaasha mid walba kalkaaliyaasha maahan kalkaaliyaasha uur kale macnaha waxay sameeyeen isbahaysi ah kalkaaliyaasha uur kale marka waxyaabaha adduunka dhif naadir ku ah marka aad fiiriso adduunyada mar walba waxaad arkaysaa wax kugu cusub ciyaar maahan 16 kamid ah isbitaalkii shaqaalihii isbitaalka in hal mar ay wada yeeshaan uur marka waxa kale ay sheegayaan dadkan in hadda kadib tan ay u noqotay mid cajiib ah isla markaana iyaga laftkooda ay la yaabeen marka ay ogaadeen mid walba oo kamid ah in ay uur leedahay cajiib waxay ku dhiiradeen in ay group samaystaan si ay sii warqabaan tan kale waxay amaan u soo jeediyeen shaqaalaha kale ee kala shaqeeya isbitaalka in ay ku xushmeeyaan arrintan isla markaana marka ay shaqooyin qaar ee ku adkaaday sababtoo ah qofku markuu uur yeesho iyo mar kale isku shaqo ma ahan shaqadii qaba jirtay ma ku dhiiri kartid oo ma qaban kartid shaqooyin qaar marka waxay leeyihiin waxaan u mahad celinaynaa shaqaalahana garab istaagay ee noo muujiyay firfircoonida shaqooyinka aan qaban jirnay qaarkoodna iyaga la wareegan in ay bilaabeen in ay na caawiyaan marka ay arkeen in aan uur leenahay arrintaasna aad ay u soo dhaweeyeen waa cajiib marka haddii aad hayso ama aad aragtay mid lamid ah sheekooyinkan waa ila soo xiriiri kartaa si aan anigana halkan idinkugu soo gudbiyo insha Allah waa walaalkiin badbaado idin la sidaas iyo nabadgelyo